الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxa la Ismaaciil Ali Axmed waxaan u maleynayaa in raggan intiisa badan kullaba yaqaaniin maanta halkan waxaynu isugu nimi arrin beriyahanba dadkeena reer Somaliland ama guud ahaan noqoto ama dibad ha noqotee laga hadlayay oo inta badan si nuxurka ka baxsan oo khaldan looga hadlayay waa arrinta warshada sibirka ee berbera arrintaasoo aan aniga iyo rag kaleba jeclaadeen bal inay iyaguna wax ka yidhaahdaan bacdama reer Somaliland oo dhan arrintan ay ka hadlayaan gudo iyo dibadba bal inaynu inaguna aragtideena wax ka nidhaahno arrinta tan haddii aniga ka yidhaahdo taariikhdeeda warshadan sibirka waa la yaqaanayo waxay ahayd warshadii sibirka ee dowladdii hore ee Soomaaliya ee burburta ay dhistay berbera dusheeda ku taalay warshada waxa meeshii ku haray way burburtay ama waa la bilaqaystay baan oran karaa meesha waxa ku haray burbur aan qiimo badan lahayn oo aan ahayn warshad shaqayn karaysa waqti ahayd dowladda daahir riyaale berigaysiiba dhici doonto dhowr bilood horteed ayaa niman isu tagay oo ganacsadayaal waxay dowladda weydiisteen inay warshada dhisaan oo ay kiciyaan dowladdaas way siisay liisan bay u siisay inay kiciyaan warshada oo dhistaan ragaasu hawl badan ayay galeen warshada waxay ku sameeyeen survey ama sahamin bay ku sameeyeen wadamo badan oo dibadda bay u tageen way qiimeeyeen markii ay qiimeeyeen qiimaheedii waxay u qaybiyeen dadka inay dadka u siiyaan saamiyo ay siiyaan oo ay dadka reer Somaliland oo dhan ka qayb geliyaan dowladdii timi xusbigan kulmiye oo hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed waxay ka codsadeen in dowladdu ay qiimeysato wixii meesha yaallay ee burburka ku haray oo qiimaheeda markaa loo celiyo marba hadday dadka soo galaya ay yihiin dad gaar ah aanay hantidii qaranka noqonaynin hadhowto dowladda ilaa waqtiga ay timi ilaa maanta warqadihii laga dalbaday iyo arrintii qiimeynta ee laga dalbaday way la aamustay laba jeer baa lagu celiyay way la aamustay dabeedna waxa dhacday waqti aan fogeyn oo laga joogo imika 3-4 bilood inuu yimi maalqabeenka la yiraahdo dahabshiil oo sita warqad ka timi madaxtooyada oo uu leeyahay halka warshadu tahay ayaan anna warshad sibir ka dhisanaya arrintaas waxay kicisay buuq badan bay kicisay arrintaas waxay kicisay iska horimaatin bay kicisay meeshii iyadoon cidna laga abaashan ama cidna loo soo marin waxa la dhigay size baa la dhigay ama xaydaanka waa la burburiyo dadkii reer berbera ayaa burburiyay mar labaad baa haddana la soo noqday oo waxa la xaydaamay oo gabigeediiba la waageertay buurtii sibirka markaana waxa burburisay dowladda hoose ee berbera oo iyadoo ahayd maamulka dhulka ee magaalada berbera aan lagala tashan halkaa markay marayso buuqii uu sii batay waxaa dhan ka soo jeeda markaa oo difaacaya inaan halkan khayraadkan dadku wada leeyahay la oodan ama nin qura aanu heli karin odayaasha reer saaxiil ee la yidhaahdo lagu magacaabo dan iyo duco arrintu markay halkaa marayso ee buuqaas uu kacay ee sidaa u nimi haddana waxa galay oo berbere tegay laba wasiir ninka la yidhaahdo wasiirka arrimaha gudaha oo la yidhaahdo duur iyo ninka la yidhaahdo Sacad Cali Shire labadii dhanba way la shireen waxay soo saareen go-aamadii waxaa la isula soo dhaadhacay Hargeysa
haddaba waxaa jira oo maanta socda oo aan istaagin arrin la adeegsanayo saxaafadda ama meediyada oo loo adeegsanayo runtii si khaldan oo dadkii aan waxba ogeyn si khaldan lagu sameeyey misleading misinformation lagu sameeyo oo si kale wax loogu sheegay oo loo tusay odayadii reer saaxil ama reer saaxilba inay wax ka sheeganayaan oo dhulka iyo khayraadkiisa saaxil ka sheeganayaan dadka kale ee reer Soomaaliya marnaba ma oran cid baan wax ka sheeganayna waxa la isku hayaana maaha khayraadka saaxil yaalla waxay ahaayeen warshadan bay ahayd waxaan u arkaa inay tahay oo in badan oo ila aragtiin oo aragtay inay ayaan darro tahay berbere oo ah meesha ugu dhaqaalaha dalka ugu fiican ka soo baxo berbere oo ah meesha dalkeena muxuu ahaa dhaqaalihiisu ka soo baxo maalin walba intaasoo laankuruuse laga soo kaxeeyo lacag hadday tahay haamatay iyo hadday deka tahay iyo hadday custom tahay iyo hadday macshar tahayba weligeedna aanay cidi sheeganin oo ka sheegan bulshada reer Somaliland in reer saaxil ama odayadan ceebka saliimka lagu eedeeyo oo saxaafadda loo adeegsado inay ka sheeganayaan khayraadkii dhulka iyo saaxil ummadda kale ka sheeganayaan aad iyo waxaan hoosta uga xariiqayaa inay arrintaasu tahay arrin gardarro ah inay tahay arrin xaqdarro ah in inta lagu soo duulay oo meeshii duulimaad yimi iyadii haddana loo adeegsaday awood lacageed awood saxaafadeed awood dowladeed intaba loo adeegsaday waxaan u arkaa in badanina ila qabtaa inay arrintaasu keeni karto isku dhac in lagu kalifi karo reer saaxil inay sheegtaan in lagu kalifi karo in badan bay iska fogeeyeen inaanay reer saaxil marnaba ka sheeganaynin cid khayraadka dabeeciga ah ee ummadda ilaahay ku manaystay bal haddaba su-aasha meeta taale waxa weeye ma odayaasha iska baraxeeyay war annagu cidna waxba ka sheegan mayna warshada nala siiyay liisanka naloo siiyay baanu doonaynaa dhisanaynaa weliba ummadda reer Somaliland aanu u qaybinay ayaa wax sheegtay mise waxa wax sheegtay maalqabeenka buurtii sibirka ku wareejistay xaydaankii yiri aniga inta qaadanay su-aasheeda taa jawaabteeda waxaan u daynayaa bulshada ayaan u daynayaa anigu se waxaan leeyahay horena in badan looga hadlay odayaashuna ka dhawaajiyeen in aanu yeelan karin nin keligii oo aanu xidhan karin buuraha sibirka iyo mid kale oo khayraad leh toona ama berbera ha noqdo ama saaxil inteeda kale ha noqdo ama gobollada kale ha noqdo inaanu xidhan karin waxaan ka taaganahay halkay ka taagan yihiin odayaasha reer saaxil in la wada leeyahay khayraadka dalka inaan la kala sheegan inaanu nina xidhan karin waase ka baxsan yihiin warshad 300 mitir ku fadhida oo cid liisan loo siiyey oo dabeedna laga duulay oo lagu duulo cid kale laga dulgeeyay way ka baxsantay maaha waxa la isku haystaa buuri iyo saaxil ma waxa la isku haystaa warshad baa la isku haystaa waana nasiib darro in iyadoo saaxil iyo hareeraheedu warshado badan qaadi karaan iyadoo ay macdamo badan oo ilaahay inagu manaysto khayraad ku jiraan in 300 mitir warshada ku fadhida la isku qabsado ama loo qoondeeyo dhaqaalaha dalkoo dhan la yiraahdo sibir aan ku sameeyno waxa weeye waa ayaan darro waana runtii aragti gaaban baan u arkaa ikhtaba aragtidaas ka soo fushay waxa inoo yaallo oo buurta sibirka dhinac yaalla jabiski oo aan ahayn mid la qodayo ah buur iska dhan waxa baal yaalla dhuxul dhagaxdii waxa baal yaalla muxuu ahaa istambarkii waxa meel walba ka buuxa ciidii birta laga sameeyo noocyo badan oo qaalo iron ore baa taala marka ninkii maanta Somaliland maal gashanaya ama ha noqoto saaxib ama ha noqoto muxuu ahaa gobollada kale waxa leeyahay in meel walba lagu soo dhaweeyaa
laakiin ma aha in warshad cid la siiyey cid kalena ay ka dul timaado oo tidhahda aniguna tan baan doonaya. haddii aan in yar ka idhaahdo xalka muxuu haddaba noqonayaa xalku, iyada oo maanta madaxweynuhu uu arrintii gacanta ku hayo, iyadoo aanay jirin meel madaxa waxa la idhaha la salaaco madaxa ka sarreysaa ma jirtay cid maanta muxuu ahaa dee awoodda ay ugu sarreysay isagu leeya ama codka ugu sarreeya ee ugu dambeeya oo aynu u dooranay oo aynu xilka u dhiibanay. haddana anigu waxaan ku soo xidhayaa saddexdan qodob ee ay wasiiradii arrintan gale ay soo jeediyeen. kow ah inaan magaalada berbera aanay qaadi karin laba warshadood oo sida. laba, in ay xaq u leeyihiin dadkaa markii hore dhisanaya ee liisanka loo siiyey inay iyagu xaq u leeyihiin inay warshadaa dhisaan, ummaddana ay ka qayb geliyaan oo wax ka siiyaan oo u qaybiyaan ummadda. saddex, in loo fudaydiyo wixii ku xidhma dowladda oo aan la xayirin oo iyaga haddana lagu canaanan way dhisi waayna loo fudaydiyo wixii dowladda kaga xayira ay dowladdu u fudaydiso. iyagana waajibka saaranay uu yahay in ay dhisaan oo sida awooddooda sida ugu dhaqso badan awooddooda ay dhisaan. waxaynu isla garanaynaa halkaa markaynu warshad sibidh ka hadlayno waa know-how ama waa aqoon inaga fog oo aynaan inagu lahayn qalabka gelaya. dowladdii hore waxay ku qaadatay 15 sannadood bay ku qaadatay intay dhisaysa. dowladda yare maanta aan la aqoonsan iyo muxuu ahaa ganacsatadeenna shandada lacagta ku sidatee shandada lacagta ku qaadano waxaa laga yaabaa inay in badan ku qaadato ka badan. lama odhan karo ninkii sanad 8 bilood horteed la siiyey ee muxuu liisanka waxbaanu dhisaynin laguma canaanan karo. dadaal badan bay sameeyeen, survey bay sameeyeen, China ay tageen, France bay tageen, dhisaynkii warshaday raadiyeen, meel walba way u mareen, dhaqaale fara badan baa kaga baxay. haddii la canaanan karo oo la yidhaha ha la canaanto anigu waxaan arkaa inaanay marnaba canaan lahayn, laakiin cidda canaanta le waxa weeye canaanta u arkaa inay dowladdu leedahay canaanta leedahay bacdaaba ay xayirtay codsigii laga codsaday inay meeshan soo qiimayso. qodobadaa ay soo jeediyeen labada wasiir ee ka ugu horeeya yahay inay meeshaasi warshad qaadi karto, inay xaq u leeyihiin ganacsatada markii hore liisanka la siiyey inay warshadaa dhisaan, in aan khayraadka dabeeciga cidi keligeed yeelan karin iyo mid qaranba la ilaaliyo la wada ilaaliyo. arrimahaas baan anigu aada iyo aada u taageeraya, iyo go-aanka odayaasha oo aan isaguna ka fogeyna isaguna ku salaysan maslaxadda iyo waxwada qabsiga la doonayo ummadda inay isku soo dhaweeyaan, kuna soo dhaweynaya berbere iyo saaxib inteeda kaleba inay dadku ay wax ka qabsadaan. waxaa ku jira qodob odhanaya dahabshiilno waxaan ogahay ama cid waliba ka markhaati kacaysa dahabshiil inuu xeebta berbere dhul weyn ku leeyahay oo haddii dadka berbere oo dhan lasoo ururiyo laga yaabo dhulka uu ku leeyahay inaanay iyagu ku lahayn. su-aashu markaa waxa weeye dhulka kan sidee baa la odhanayaa ma qof baa loo xidhayaa iska leh? qofku dhulka wuxuu ku leeyahay meel uu seexdo, meel uu hadduu ama ganacsade ama baamushar yahay wax ku iibsado, meel marka uu dhinto lagu xabaalo. waxaan u malaynayaa inay intaba ka badantay dahabshiil intuu ku leeyahay berbere oo qura. marka halkaa waxaan leeyahay halkan la leeyahay dahabshiil baa loo diidayaa berbera inaanay wax jira ahayn, interes badan iyo komaniyo badan iyo xabisyo badan iyo daara dhaadheer uu ku leeyahay. waxaan leeyahay xalku wuxuu ku jiraa inaan marka cid meel la siiyo aan qolo kalena ka daba duuno oo dhan annaguna waan doonaynaa. dowladdu iminka haamihii bay bixisay, cid bay siisay, cidi kama daba hadlo, reer saaxil kama daba hadlo. macsharadii baa cid la siiyey, weli waa beesha uu ka soo jeedo, lagama daba hadlo. markaa su-aashaad isweydiinaysaa waxa weeye kuwa odayaashan ama ganacsatadan warshada la siiyey
maxaa looga daba duulay loogu qabsaday uu ninkan kale ama ganacsatan kale waliba dawladuna ka dambeysay uu yiri aniga doonayo dhisanaya loogu xaydaamay meesha waaniyada dawladda lafteeda anigoo dawladda ixtiraamaya xukuumadda aan idhaahdo xukuumadda ixtiraamaya madaxweynaha ixtiraamaya waxaan leeyahay dawladdu hal ha ka fogaato hana ka foojigaato hana iska ilaaliso inay u afduubnaato ama uu qafaasho nin maalqabeeni dawladdu ha iska ilaaliso waxaan anigu leeyahay waxa arrintaa ku jirta oo ka dambaysa awooddii dawladda oo ganacsada uu isticmaalayo oo siduu doono uu ugu tashanayo dulalkan dunida ilbaxay waa la kala ilaaliyaa ganacsatada iyo madaxda ama ninka tartamaya inaanu ninka ganacsatadii ku isticmaalin lacagtiisa ninka madaxnimada u tartamaya ama dawladda u tartamaya taa macnaheedu waxa weeye ninkaas baa yeelanaya maalqabeenka ama ganacsatadaas markaa dawladdii yeelanaya waxaana leeyahay maanta arrintaa waxaa ka dambeeya oo buuqa iyo sawaxanka iyo iska horimaatinka dhaliyay waxa weeyaan ganacsade isticmaalaya awooddii dawladda oo ay u qafaalan tahay dawladdu ha iska xoreyso qafaalka ama afduubka ay ku jirto waana halis hor leh oo kusoo socota ummadda reer Somaliland oo waxaa jira intii dalku burbursanaa ganacsato ka dheeraysay awooddii dawladda aan la xakamayn karin laakiin hadday dawladdu ku dhiirato oo isticmaasho sharciga ama legitimacy-ga ay leedahay ummaddeedu siisay ay xakamayn karto waxaan odhan lahaa maalqabeenka dahabshiil lacagtaadu ifii aakhiraba yaanay dhibaato kuu soo jiidin ummaddana dhibaataha ugu soo jiidin berbera 20 30 50 warshadood oo kala geli kare iskaga tag oo warshad kale dhiso haddaa taa kali weydo dee ummadda wax la yeelo wassalaamu calaykum waraxmatullah bismillahi raxmaan raxiim maanta halka waxaan ku wada fadhinaa xubno ka tirsan jaaliyadda Norway ee reer Somaliland waxaan ku fadhinaa dadka socda gobolka Togdheer anigoo reerkiisa niman gobolka saaxil ka yimid waxaan doonayaa fikrad ku biirino arrintan iminka xagga sare kaga jirta arrimaha siyaasadda iyo dhaqaaleeda bulshada Somaliland ee ku saabsan warshadan sibirka ee berbera ku taala waxaan doonayaa inaan ku bilaabo muddo aan saa usii fogeyn waxaanu galnay tartan siyaasadeed tartanka siyaasadeed macnaheedu maaha in cidda badisa ay maaragtay wax walba ku guuleystay wax walba maaragtay xaq u yeelanayso ama sida afrikaanka lagu xamin jiray inay siyaasadoodu tahay the winner takes all nimcada waddanka waynu wada leenahay inaynu wada qaybsano ay maxay toolay faa'iido kulligeed noogu jirtaa dib iyo dheefba inaynu qaybsano ayda khayrkii faa'iidaduba ku jirtaa gobolka saaxil waa run wuu u baahan yahay maalgelin buu u baahan yahay dowladda Somaliland mas'uuliyad baa ka saaran inay shacabkeeda shaqo u abuurto iyo dhaqaalaha waddankaba inay sare u qaado waxa soo kordhay xiiso iyo interest fara badan oo laga leeyahay warshadii sibirka berbera la kiciyo waxaynu ogeyn in dowladdii hore Somaliland ka jirtay Daahriyaale inay dad maaragtay u igmatay inay warshadaa kiciyaan inay muddo soo socotay inay doonayaan maxay toole inay saama qaybsi dadkoo dhan maaragtay ka qayb galo arrintaa lagu wado waxa kaloo aynu ognahay in warshada masalan Coca-Cola oo kale ay hirgashooday Somaliland ka dhaqaaqday cidna aanay iyo buuqtoona aanu ka dhalan waayo waxay moodaa Coca-Cola in saamigii si macquula loo qaybsaday warshada sibirka berbera waxay moodaa shirkadan weyn ee dahabshiil inay dadkii ka bajisay
oo dadkii oon hayn khabar ama war fara badan information fara badan la moodaba warshad gaar ay u leeyihiin dee inay qodayaan ay dhisayaan oo ay dadkii deegaankuna u qaateen inaan lala tashanayn saan ogahay adduunyada haddii warshad la dhisayo ama haddii mashruuc weyn la bilaabayo dadka deegaanku de xaq bayna in lala tashado in la dhegaysto in aqoon-yahanka la dhegaysto in guddi loo saaro in wixii waraa jiray ee macluumaad la ururiyo si obina dadkoo dhan loogu soo dhigo taasi waxay naga badbaadin lahayd buuq fara badan iyo kala shaki fara badan ood moodayso warshadii dee shaqo abuurid iyo faa'iido bay noo keeni lahayd inay inagu keentay iminka anigu hadalka soo koobaya magacayga axmed muuse la yidhaahdaa waxaan soo jeedin lahaa oon leeyahay wanaag wuu ku jiraa bal horta wixii shirkaddan dahabshiil ay damacsan tahay si furfuran oo obina dadka ugu soo bandhigto waan jeegareeyo waan eegano website-yada dahabshiil wax warshad sibir ah oo ay dhisayso ku qoran haba yaraatee ma jirto warar badan oo maaragtay de kutirkuteenna way noo imanaya haddaan nahay jaaliyadeeda Norway joogta dawladda waxaan ku dhiirigelinaa arrinkaa maxay toole inay mas-uuliyad iska saarto horaal maaragtay reer Somaliland dad ka mida loogu dacaydayn jiray dagaaladii qamadiga iyo maaragtay caynka maantana de maaha inay de dhibaata ka dhacdo sibid iyo warshad yaro maaragtay wax ka weyn baynu sugaynaa dhulkeena macaadiin fara badan khayraad fara badan ayaa ka buuxa intaasaan kusoo gabagabaynaya waa mahadsan bismillaahi raxmaani raxiim horta soomaalidu waxay ku mahmahdaa anaa hadhay looma hadlo kullay dee raggii iga dambeeyey ismaaciil cali iyo axmediya hadalkiiba dee dhameeyey anigu in yarun baan ku dari lahaa waan badnayn horta nin baa wuxuu ku mahmaahay laba walba isa saarayo weli laba toogo ismaan saari waxa horta aada iyo aada wax loola yaabo noqotay madaxweynihii dhannaa ee aynu dalka iyo dadka ee ummadda u dhaartay inuu cadaalad ku dhaqo markii warshadii sibirka yidhi shaksi buu siiyey ta anigu waan u qaadin waay oo weliba dee shaksi kasoo jeeda beeshooda waxa weeyaan oo haddana markii ay igu darsantay aan website-yadii ka arkay isagoo waageertayba dee khayraad boolihii sibirkeed dee berbera oo khayraad ummadda reer Somaliland oo dhan ka dhexeeyo aan cidigaar u lahayn waxa kaloo iyaduna wax aada aan ula yaabo noqotay markii madaxweyne wuxuu bixiyey madaxweyne ka daba bixiyey iyaduna taariikhda waa mid horta ku cusub marka horta madaxweyne waxaan odhan lahaa arrinkaasi wuxuu noqday arrin aada iyo aada ceeb iyo fashilaada dahabshiilka qaatayna isaguna wixii la arki jiro waxoodaa lagu akriya waxaan la arki jirina dee waa mid subxaan allah haddaba waxaad moodaa in xaggan saxaafaduna aanay maanta dalkii xor aanay ahaynoo ay sayr u badan tahay ma garanaysa iidhah oo dhan qura la buunbuuninayo aanay saxaafaddu maanta aanay qori karinba dee wixii maxay ahaydee dhabtay amba xaqiiqada balwadar iyo waxyima waana balma dadka beesha dhan ee aan lagala tashan ee aan waxba la weydiin ee mar quran ku baraarugtay buurahoodii oo la waageerto nin maalqabana waageertay ayaa eedan leh oo weliba haddana la eedinayo le reer baa sheeganaya khayraadkii dalka horta wiiliyahana bar waxaan odhan lahaa dawladdii hore shalay toole dee anuu dee kulmigaaban ahaayo waxaan ku haysanay dawladdii hore saxaafad bay caburisay dee baltaana iyo saxaafad bay eryanaysaa iyo saxaafaddii baa leeyahy ma hadli kartaan igawalla waxaanu taaginaya hargadeeda naga celiya halkaasaan kaga baxaan bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa cigaal caaluub kolle waxaan malanaya dadka intiisa badan inay garanayaan kolle hadalka odayaashii iga horreeyey ee halka fadhiyay baa hadalka dhameeyey anigu laba amba hal ayun baan doonaya inaan sii daaciyon ku daro
waxa weeyaan kulmiye ama dowladdan iminka xukuumadda qabsatay wax badan waxay dowladdii hore ku cambaareynaysa inay saxaafadda caburiyaan oo suxufiyiinta la iska xidho laakiin maanta waxaanu arkaynaa noo muuqata oo aan cidna ka qarsooneyn inay iyagii laftoodii saxaafaddii ay caburinayaan oo saxaafaddii waxa ay doonayso iyagu ay sheegayaan dhankooda u badan tahay odayaashan gobolka saaxil ka soo jeeda ee eedaha fara badan la saarayo iyadoo loo adeegsanayo baawarkii ummadoo dhan wada lahayd iyo saxaafaddii ummadoo dhan ka dhexaysay mid baan odhan lahaa madaxweynaha iyaga maxamuud axmed siinaayo waxa weeyaan kursiga waxaad ku fadhiisatay codkii shacabka dadkaa ku doortay waxaana lagu doortay inaad cadaalad waddanka ku maamusho aragtideeda waxaan arkay inaad cadaaladdii dowladdaadu aada uga fogtahay may dhicin adduunyada nin meel la siiyey oo dowlad liisan intay bixisay dad siisay haddana liisan kale uga daba yimid markaa waxaan ku odhan lahaa kollay halkii ugu sarreysay adaa maanta fadhiya oo waddanka ka madaxweynaha arrinkiina adiga gacantaada ku haya oo kugu soo noqday aada uga fiirsa arrinkaa oo weliba ay cadaalad ku jirto waad ogeedo maalin dhaweed waxaynu baxnay shir baynu ka qayb gallay ictiraafkeenii iyo waxyaabo badan si aan hore ugu sii socono waxaad moodaa inay haddii arrinkaasu saalin loogu fiirsan waayo inaynu hoos usii noqono adduunyadii dhan way neegaysa marna no kolba in la ihahdo marna warshadii baa la isku qabsaday marna halkani waxaanu ka dhacen waayo indho badan baynu kusoo maqan marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu